بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم. waxaan hambalyo u dirayaa maanta dhammaan umulisooyinka caalamka oo dhan. Maanta waa International Day of Midwife. Anigu waxaan ahay umuliso, waxaan caawiyaa hooyada iyo dhalaanka. Shaqada umulisada ma ahan shaqo oo kaliya, laakiin waa shaqo ay ka buuxdo naxariis, kalgacal iyo adkaysi. Waxaan ka caawinaa hooyada iyo dhalaanka inay caafimaad buuxo ay helaan. Sidoo kaleeto waxay umulisada ka caawisaa hooyada xilliga uurka ka hor inay daryeel u sameyso, iyo markay uurka gudihiisa lagu jiro, iyo markay dhasho kadib. Sidoo kale umulisadu waxay lafdhabar u tahay ama udub dhaxaad dhammaan bulshada oo dhan. Sidaas darteed umulisadu aad ayay muhiim u tahay. Dhammaan waxaan u hambalyeynaya umulisooyinka caalamka oo dhan aad ayay u mahadsan yihiin. maalinta umulisada adduunka waxaa loo asteeyay in lagu xuso doorka muhiimka ah ee kaga qayb qaadano badbaadinta hooyada iyo dhallaanka. Umulisadu waa tiir dhexaadka hooyada iyo dhallaanka. Umulisanimadu waa dulqaad, adkaysi iyo heelanaan dhab ah. Waxaan door muhiim ah ka qaadanaa kusoo biirista nolosha cusub ee aadanaha adduunka. Waxaan u hambalyeynayaa dhammaan umulisooyinka adduunka, gaar ahaan umulisooyinka Soomaaliyeed. Happy International Midwives Day. Dalmar Specialty and Teaching Hospital. Higsigeenu waa caafimaadkaaga.